komishanka qaranka ee xakamaynta HIV/AIDS ee gobolka Togdheer ayaa wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunkan sida loo kala qaado iyo sababaha keena uga waayo waramay ciidamada dabdamiska ee gobolka Togdheer kulan ay kula qaateen xarunta ciidamada dabdamiska ee gobolka Togdheer wafdigan oo uu hogaaminayay isuduwaha komishanka qaranka ee xakamaynta HIV/AIDS ee gobolka Togdheer Mahdi Jaamac Nuur iyo xubno kale oo ku wehelinayay ayaa si qoto dheer uga dheeraaday muhiimadda barnaamijka baraarug ee komishanku ka waday iskuulada ciidamada kaas oo ujeedadiisu ahayd sidii bulshada looga wacyigelin lahaa ka hortagga halista xanuunada faafa waxay sidoo kale uga warameen habka loo kala qaado la isugu gudbiyo iyagoo ugu baaqay bulshada la nool xanuunkan inaan la takoorin lana dareensiin dhib ka badan ka ay gudaha ka dareemayaan iyagu waxaanu wadnaa mashruuc leeyahay baraarug oo aanu ku taageeraynay dugsiyada sare xeryaha ciidamada haday yihiin booliiska militariga dabdamiska xeebaha dhammaantood ujeedada taargetka iyagu ama aan u dooranayna ma ahayn inay dadka iyagu dhibaato dheer yihiin ama ay dhibaatooyinkan xanuunkan iyo waxyaabahan laga hadlaya iyaga ay ku badan yihiin maaha qorsho waxa weeye iyagu dad urursan oo mar walba meel wada jooga muhiimna ay tahay mar haddii mashruuca baraarug la yidhaahdo inay xog ka hayaan waxa dalka ka jira ama dhibaatooyinka xanuunada dalkooda ka jira sidii ay ula tacaali lahaayeen sidii ay dadka uga wacyigelin lahaayeen sidii haddii ay la kulmaan qaar qaba ay u caawin lahaayeen ee aanay u takooreen waxyaabahaas ayuu xambaarsan yahay mashruuca waxaynu kaga hadli doonaa inaynu isyar xusuusino muxuu yahay HIV-gu qof kastoo HIV qaba miyuu AIDS qabaa sidee ayuu HIV-gu ku gudbaa HIV waxa weeye waa fayraskii weeye AIDS-na waa wuxuu keenay waa xanuunkii haddaba muxuu khatar u noqday xanuunkan ama uu noqday dhagaheena markuu ku dhaco mid saameyn ku yeesha inta badan xanuunkan wuxuu la dagaalamaa difaaca bini'aadamku marka koowaad uu jirka soo galo meesha ka saaro dili karaa qodobka kale ku xiga waxaan ka hadlaynaa sidee buu gudba xanuunkan iyo qaabkee uu kala gudbo markan si guud u soo koobno 3 waxba ugu waaweyn xanuunkan ku gudbo dhiigga kow caanaha iyo muxuu ahaa dhacanada biyaha taranka markaas waxa dawle AIDS-ka uu sii daran yahay kaasban waxaanu ku ilaalin karnaa HIV inaanu AIDS u gudbin oo aanu qofka calaamadihii muujin calaamadihii maxay ahaa inuu difaaco qofku uu inta hoos u wada dhaco wax kasta oo soo gala duriga yar uu qofku serious u gaadho waxyaabahaas ka hortagi karnaa waxyaabahaas ay la joojin karaa laakiin virusku jirku ku jiri karaa soo jirku ku jira ayaa waxa la sameyn karaa waxa lagu hayn karaa heer aanu wax calaamad ah ama wax xanuuna oo maxay tahay khatar naftaada gelin karaa aanu ku hayn karin dawadu ma taala dalkeena way taala qof kasta la nool way jiraan imka dad nool 12 la nool idinka shaqaysta fiican ma sha Allah idinka xoog waaweyn komishanka qaranka ee xakamaynta HIV/AIDS ee gobolka Togdheer ayaa waday muddooyinkii u dambeeyay wacyigelin ku saabsan dhibaatada xanuunkan ka hortagga iyo ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Bro